labada family tashteen waxa dhacday in ayadan war ka hayninbo in lagu yiri wiilkan waa kugu mehrinay de barina xamara lagu keenayaa ku talagal waa lagu daracta ama waa lagu mehriyaba waa lagu mehriyaba lama tashan wax su'aal ma rabtaa ma ku qanacsan tahay ilaan qofka maxaa la fiiriyaa mugtay rabitaankiisa sax labada qofna waxay isku doortaan waa rabitaankooda waa badanana dadka la isku qasbo ama maaragtay familada isku qasbaan oo kale meesha waxa ka imaada burbur aad u weyn marka maadaama ay saas igu dhahday anigana de wax aan sameeyay aan garan waayay meeshina waa ku cusbaa maanta marka waxa la waa lagu mehriyay xamar maxaa tiri taas xamara lagu geeyay macnaha habarteed xamar ay joogtaa Soomaa ayadana meeshaas la joognaa habartii wiilka dhashay wiilkina meeshuu joogaa xamar jira markii yarka waxa yar xagga ka imaada qurbaha iyo dhankaas Yurub oo ka imaaday marka familku waa family qurbo waa reer qurbo ah kuwa dhinaca wiilka ama dhinaca wiilka ayaga reerkooda waxay degan yihiin meesha degan yihiin asla joognaa sax marka waxa dhacday in la dhaho gabadhii isdiyaari ilaaba ninkaaga lagu geenayaa marka de ayadan waxay dhahday maxaan sameeyaa aniga tala i weydiinaysaa ila tala maxaan sameeyaa maraxta waxay damacday in sun cabto anigu aan kala taliyaan iri ma yaha sameeynin naftaada ilaahay kala hormarin sax leen dambi aad u weyn waa marka waxa iri arinkaas ku dhaqaaqin anigu iga warsig bal wax aan sameeyana ma garanayo laakiin wax maalan ku dhaqaaqay waxay noqotaba aday tala ka sugaysaa adiga tala bixisi anin tala ma haay ilaan de meesha waa ku cusbahay maanta wax awooda ma laha gabadh inta gurigeeda tago kama soo xoogi karo kastoo sharaf daray noqonay waxa fiican in reerka si fiican oo waji qurux badan ku wajahday sax marka anigu wax aan sameeyaan garan waayay waxa dhacday macnaha qof maanta macnaha oo gabadhaas inta soo reerkeedu ka soo xogo oo bixin kareen ma tiid oo shaqo iyo wax meel kuma hayo sax ma garatay laakiin jacayl wuu jiraa oo qofka jacayl waa jeceshahay oo nafsadaada maanta u huri kartaa laakiin de baahiyo badan ka horeeyo يعني financially dhaqaalahaan qof shaqaysto dhaxda u xiran tahay sida ka hadli karmitid odayaal inta dursaa hadda macnaha rafaad ka soo baxay oo dhibaato iyo maaragtay qaxooti intaas ku soo jiray sax laakiin ninka ragga sidiisa waxaa la yiri go'aan buu qaataa wax walba oo ku imaadaba marka waxaan ku iriday kulley anigu wax baan sameeynaa bal iga warso anigu waa iska fikriyaa intaas maxaa ku dhaqaaqdaa aniga nafsadeyda isla sheekaysanay maxaa sameyn kartaa hadda maxaa la yiri tala kaliya kugu saabsanna kama bixi kartid oo inaad dad la wadaagtid waqtiga qof kaligiis tala ma qaadan karo hadduu maaragtay xaalad adag ku jiro sax dib waayo aad ay kugu adagtaa meel wax ka bilowdid ma laha sax laga yaabo xataa go'aamo oo qaldan inaad qaadatid noloshaada bari ka maalin oo saameyn kugu yeesho ka shalaanaysid marka aan intaas diidana inay igu dhacdo inta maaragtay go'aamadaas aan qaadanin waa iska fikiray waa ku warceli waxaan iri wax aan sameeyo ma aqaan waalidkaaga waayo waxaan keenay aan iri ana waalidkaaga kama weyni maanta oo awood uma sheegin kara ayaga micnaha haddii xaq la dhaho ayaga iga kaale sax anigu qof shalay ku bartay oo kale la mid ah oo micnaha maanta ayaga micnaha xaq ugu badan haddii la dhaho ayaga kugu leh ma garatay sax waxaan iri xaaladeedina waa kaasa hadda micnaha qof qaxooti ka soo baxay oo dhibaataysan oo micnaha wax meel aan wax ka bilaabo xataa magaalada igu cusub tahay shaqo haddaan dhaho xataa raadi maanta wax alaale waxay noqotaa aan heli karin ma garatay sax sideedana shaqadana markii la dhahayo waa in waji iyo qaab maaragtay isku siiyo process dheer in la maro waa processkii maxaan ka gaaraa aniga howl ay haysataa soo maaha tan kalena meesha waa ku cusubta meesha deegaankana waa ku cusbaa inkastoo deegaanka aan u dhashay aan kasoo jeedo haddana dee deegaanka laygama yaqaan waayo intaasoo sanaan ka maqnaa sax ma garatay xaala kuga adkaa xaalkii micnaha xaaladda jiqa igu noqotay waxaan sameeyaan garan waayey waa u sheegay waxaan iri dee waalidkaaga maanta waxay kugula taliyaan raac waalidkaaga kama weyniy ilaan maalid ayagaa kula jeclaaday wiilkan marka waxay tiri ilaaba sun baa cabiya wixii ka dhici lahaa inta micnaha kaas aan u hoyan lahaa oo micnaha maanta guri aan wada degi lahayn waxa iga wanaagsan anoo nafsadeeda maaragtay isdhaafiyo waxaa ku dhacday gabadhii in nolosheedii dib u dhac badan ku imaado dadka ina soo dhexgelay qofka wiil dhalinyar buu ahaa mise qof weyn ahaa wiil dhalinyaro wahay horey uma arag laakiin ayada hore uma arkin kaliya waa la tusay waxaa la yidhi wiilkan
waa lagugu meheri khalaas okay waa u tegaysaa waa ninkaagii meel baa wada degaysaa markaa sax ay qof intaas de case looga dhigay see noqon kartaa noloshiisa ayada walwal fara badanaa ku abuurmay walwalka ayada hay anig kan iyo hayaa ka darnaa iyo murugada ma malayn kartid runtii aaday ii saamaysay waayo maalinkii oo dhan wax ma cunin borta maalinkii oo dhan fikir waa iska fikiraa maxaa samaysaa maxaa ku dhaqaaqadaa aniga la isla sheekaysanaya nafsad ahaanteeda sax nafsadeediina maanta go'aan micnaha waa go'aankaas waaye aa ku qanacday isma dhihi karo boqolaal go'aana maanta micnaha ay soo hordhigaysaa midkaan qaatana ma garanayo ma garatay sax soo maadaama ay saas dhacday ayadina waxaa lagu yidhi ilaaba adigu waa lagu taliyaa gabar baa tahay anaga go'aankaan maaragta soo dejino baa kaaga ka weyn bay sheegtay horta markii dambe in adigu kula maraa waxaa weydiisay familka uma sheegay inaan isla socono kale ayada waxay ku tiri ma wada dhegeysanay may u sheegtay horta yaaba la dhegeysanay waa la socodsiy waxaa iri familka ma la socodsiisa arrinteeda gadaal dambe marka waxay ugu tiri waa u sheegay laakiin waxaa la yidhi waxaas adaa lagu dhahaa oo anigu waxaas dan kama lihin isna qof ehelkaaga ah oo habartaa wiilka ku dhashay aa kuu jeegoba maxaa ku falaysaa qof kale dhan walbaa laga soo maray waxaa dhacday in sidii micnaha ayadoo diidan in diyaarad la saaray oo xamar laga dejiyey xamar markii la geeyey wiilkii imaamada habarta eewda ku degtay gurigeeda joogtay waxay tiri imaamada markaasaan iskugu kaay horeyso ee dibadda ka timid anigu waxay tiri lama hadlin shib xataa waxay tiri dee habar wakaa wiilkaygaa lagugu daray erye saas camal masaasay igu tiri anigu uma jawaabayna tiri qolkan hoos ka soo xirtay waxba micnaha markii lagu soo gargaraa xataa iskama ma furaayo tiri sax soo leen mugtay qofkan waa isku cusub tihiin hadda ugu horeyso haddana waxaa kaaga sii daran ayadoo micnaha habarteed ah wiilkeedaadan lagu daray marka waxay tiri arrintii markii gurigii la geeyey gabadhii wiilkii waxaa la yidhi isbarta wiilku waa ninkaagii uu ku qabaa waxay tiri waa israacnay meel cashu i geeyey wuxuu rabaa inuu micnaha iga dhaadhiciyo in micnaha labadan laba qof oo maaragtay isqaba inaan nahay nolol wadaagay haa anna waxay tiri waxaasoo dhan iima caddo sax waayo qof go'aan leh ha ahay micnaha qof aniga qalbigeyga micnaha ayada qalbigeeda isku xiran yihiin waayo laba qof oo isjecel annaha anna iga fikiraysaa anna aydan ka fikiraya sax soo labadan isku fikiraana waayo maadaama laba qof oo dareen wadaagay aan nahay soo waxaa dhacday in wiilka meesha cashada markuu geeyey uu damcay inuu ka dhaaliciyo inuu dhaho anigu ninkaaga ahay soo dhowow